بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba meel walba oo joogtaan kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Wardoon. khamiis taariikhdan waxay ku beegan tahay 22 bisha Maarch sanadka 2019 qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka Wardoon waxa ka mid noqon doona dalka New Zealand oo la sheegay in laga mamnuucay hubka kadib weerarkii xooganaa ee toddobaadkii la soo dhaafay ka dhacay gudaha dalkaas oo lagu dilay dad gaaraya 50 ruux oo ah muslimiin sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan dalalka ku yaala dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika oo la sheegay in saameyn xoogan ay ku yeelatay duufaankii dhawaan ku dhuftay oo la sheegay in dad badan ay ku geeriyoodeen waxaana la sheegay in qaar ka mid ah dalalkaasi la gaarsiiyay gargaar bini'aadanimo sidoo kale dhageystayaal barnaamijka Wardoon waxaad ku dhageysan doontaan ciidamada dalka Afghanistan oo la sheegay in howlo lagu xaqiijinayo amniga ay ka fuliyeen deegaano ka mid ah dalkaasi qodobadaas iyo kuwa kale ku maqli doontaan barnaamijka farsamadu waa Caqilnaa Naale waa mar kale iyo barnaamijka Wardoon aan ku bilownay dhageystayaal ra'iisul dalka New Zealand ayaa waxay ku dhawaaqday in gabi ahaanba la joojinayo hubka lagu kala iibiyo gudaha dalkaasi kadib weerarkii khasaaraha geystay oo laba masjid oo ku yaala dalkaasi lagu dilay ilaa 50 ruux oo muslimiin ah ra'iisul dalkaasi New Zealand haweeneyda la yiraahdo Jacinda Ardern ayaa waxa ay ku dhawaaqday in gabi ahaanba la joojinayo hubka lagu kala iibsado gudaha dalkaasi taas oo la sheegay in dhibaato xoogan oo abuuray kadib weerar xoogan oo lagu dilay 50 muslimiin ah oo la sheegay inay ku sugnaayeen laba masaajid oo ku taala magaalo ka tirsan dalkaas oo weerarku ka dhacay ra'iisul dalkaasi ayaa la sheegay in khamiista maanta ah ay ku dhawaaqday in gabi ahaanba la joojiyay qorshaha hubka lagu kala iibsado gudaha dalkaasi gaar ahaan sida sharci darrada lagu kala iibsado gudaha dalkaasi waxa ra'iisul dalkaasi ay dhawaan ka qayb gashay kulan baroordiiq ah oo loo qabtay dadkii lagu dilay magaalada Christchurch ee ku taala dalkaas New Zealand kuwaas oo la sheegay dhammaantood inay ahaayeen dad muslimiin ah waxaana xilligaasi weerar ku qaaday nin hubeysan oo la sheegay inuu ka soo jeedo dalka Australia ninkaasi ayaa waxa uu rasaas xoog ku furay dadkii ku sugnaa gudaha gudaha masaajidkaasi iyadoo la sheegay in tiro kale oo dad aan dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen halka ilaa 50 ruuxna ay ku geeriyoodeen weerarkaasi oo la sheegay inuu ahaa kii ugu xumaa ee soo mara taariikhda dalka New Zealand marka la eego sanadihii la soo dhaafay ra'iisul dalkaas ayaa waxay sheegtay inay isku dayi doonaan sidii loo ilaalin lahaa amniga goobaha lagu cibaadeysto ee ku yaala dalkaas New Zealand iyadoo la sheegay dalkaas inay ku nool yihiin dad fara badan oo muslimiin ah waxa lagu wadaa in dhawaan uu dhaco kulan looga hadlayo dhibaatadii ka dhacday dalka New Zealand ee lagu dilay dadkaas muslimiinta ah qaar ka mid ah dalalka ku yaala Afrika dhinaca koonfureed ayaa waxa saameyn daran ku yeeshay duufaan xoogan oo dhawaan ku dhuftay gudaha dalkaasi waxa la sheegay in 6 maalmood kadib xaaladdu wali ay tahay mid cakiran kadib markii la sheegay in boqolaal ruux ay ku geeriyoodeen fatahaado xoogan oo ka dhashay duufaan ku dhufatay dalal ay ka mid tahay Mozambique waxaana la sheegay in kooxaha gurmadka degdega ah ee dalkaasi Mozambique ay wali ku guda jiraan baadidoonka dad gaaraya boqolaal ruux oo la sheegay qaarkood in ay fuuleen geedo iyo waliba saqafka guryaha sare waxaana la sheegay in duufaantaas oo ahayd mid aad u xoogan ay keentay in daadad ay ka dhashaan taas oo la sheegay inay ku fatahday tuulooyin iyo deegaano badan oo ku yaala halkaasi waxaa la sheegay in qaar ka mid ah shaqaalaha gargaarka ah ay isku dayaan siday u caawin lahaayeen dadka dhibaatada halkaas ay ka soo gaartay inta badanna waxaa la sheegay in ay wataan kooxahaasi doomo la doonayo in lagu soo daadgureeyo haweenka iyo carruurta ku go'doonsan qaar ka mid ah deegaanada fatahada ay ku dhufteen ee ku yaala dalka Mozambique oo ka tirsan dalalka ku yaala Afrika dhinaceeda koonfureed duufaantaas Idai ayaa la sheegay inay ahayd mid aad u xoogan waxaana la sheegay inay ku dhufatay dalalka Mozambique Zimbabwe iyo waliba dalka Malawi iyadoo la sheegay in boqolaal ruux ay halkaasi ku dishay xafiiska qaramada midoobe qaabilsan dhinaca isku dawladka howlaha gargaarka bini'aadanimo ayaa waxa uu sheegay in halkaas ay ka dhacday mashaqo xoogan iyadoo dawladaha dalalkaasina ay shaaciyeen in dad gaaraya 217 ruux ay ku geeriyoodeen
waa dalalkaasi sidoo kaleetana aan ku celiyay dhegeystayaal halkaasi waxaa la sheegay in dad gaaraya 217 ruux ay ku geeriyoodeen dalka Mozambique halka dad gaaraya 98 ruuxna ay ku geeriyoodeen Zimbabwe iyadoo dalka Malawi ay ku geeriyoodeen ilaa iyo 56 ruux dhimashada ayaa la sheegay in sare u sii kacayso madaxweynaha dalka Mozambique Philip Nyusi ayaa waxa uu sheegay in lagu dhawaaqo xaalad degdeg ah iyo waliba baroordiiq loo sameynayo dadkii ku geeriyooday duufaanta xoogan ee ku dhufatay dalkaasi taasoo la sheegay in saameyn xoogan ay ku yeelatay dad fara badan oo ku nool gudaha dalkaasi duufaantaasi ayaa la sheegay inay ka mid ahayd duufaanadii ugu xooganaa ee ku dhufta gudaha qaar ka mid ah dalalka ku yaala dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika waxaana la sheegay in dhawaan deeq gargaar la gaarsiiyey dadkii ku waxyeeloobay duufaantaasi ee ku sugan dalka Zimbabwe oo ka mid ah meelaha ugu xoogan ee duufaantaasi ay ku dhufatay hay'adaha gargaarka ee qaramada midoobay ayaa waxay wadaan qorshe xoogan oo la doonayo in lagu caawiyo dadkii ku dhibaatoobay duufaantaasi oo la sheegay inay ka dhasheen daadad xoogan oo la xaqiijiyay inay xaqeen dhul badan oo ku yaala dalalkaasi saddexda ah ciidamada ammaanka ee dalka Afghanistan ayaa la sheegay in howlgallo ballaaran ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan dalkaasi ciidamada ammaanka ee dalka Afghanistan ayaa la xaqiijiyay in howlgallo ka dhanaa ururka Taliban ay ka fuliyeen gobolka Helmand ee ku yaala dalka Afghanistan afayeen u hadlay ciidamada ammaanka ee dalkaas ayaa waxa uu sheegay in howlgalkaasi ay ka fuliyeen deegaano dhowr oo hoos yimaada gobolka Helmand oo ka mid ah gobollada ugu daran ee weerarada ay ka fuliyaan ururka Taliban ee ka dagaalama gudaha dalka Afghanistan waxaana uu sheegay sarkaalkaasi in ciidamada ay u suuro gashay in ay tagaan dhulal kala duwan oo ku yaala gobolkaasi iyadoo la sheegay in meelaha qaarkood ay ka soo qabteen hub iyo rasaas la rumaysan yahay inay lahaayeen ururka Taliban ee ka dagaalama gudaha dalka Afghanistan ciidamada ayaa waxa ay sheegeen in howlgalkooda uu yahay mid ay ka sii wadi doonaan gobolkaasi si loo soo afjaro ururka Taliban ee dhibaatada xoogan ku haya gudaha dalkaasi toddobaadii la soo dhaafay ee waxa Taliban ay sare u qaadeen weerarada ay ka fuliyaan gudaha dalka Afghanistan waxaana inta badan ay bartilmaameedsadaan baraha control ay ku sugan yihiin ciidamada ammaanka ee dalka Afghanistan saraakiisha amniga ee dalkaas Afghanistan ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada ay sare u qaadi doonaan howlgallada ka dhanka ah ururada Taliban iyo waliba Daesh ee ka dagaalama gudaha dalkaasi kuwaas oo la sheegay in weerar caadi ah iyo waliba kuwa qaraxyaha ay ka fuliyaan gudaha dalka Afghanistan iyadoo wali uu soconayo wadahadalka u dhaxeeya Mareykanka iyo waliba Taliban ee ku aadan sidii ciidamada Mareykanka ay kaga bixilayeen gudaha dalka Afghanistan oo ay ku sugnaayeen muddo gaaraysa 17 sanadood gudaha dhageystayaal inta ayaan kusoo gabagabeynayna barnaamijka Wardoon farsamada barnaamijka waxaa inoo jooga Caqilnaan Naare waxaan la socodsiinayay anigoo aadan diyasha tan iyo kulan dambe dhamaantan isku duuban waxaan kaga tageynaa sida ay nabad geliyo